waxaa jirtay tuulo yar oo degan oo ku taala webi agtiis. halkaas waxaa ku noolaa nin la oran jiray Sami. Sami wuxuu caan ku ahaa xirfadiisa doonwade. maalin kasta wuxuu dadka tuulada ku qaadayay webiga isagoo hagaya si ammaan ah, isaga oo ka gudbaya biyo degan iyo duufaano. laakiin Sami wuxuu watay wax culus, ma ahayn gacmihiisa ama doontiisa, balse wuxuu ku watay qalbigiisa. sanado ka hor Sami wuxuu ku waayay walaalkiisa ka yar shil murugo leh oo ka dhacay webiga. tan iyo maalintaas Sami naftiisa ayuu eedeynayay. mar kasta oo indhaha isku qabto wuxuu arkaa qaladkii hore dhacay. wuxuu ku fikiri jiray wax qaldamay iyo waxa uu si kale u samayn lahaa. maalmihiisa waxay noqdeen kuwo ka buuxa qoomamo. wuxuu bilaabay inuu si gaabis ah u socdo, dhoola-caddeyntiisuna way baaba'day. dadka tuuladana waxay ogaadeen inuusan mar dambe ahayn ninkii habeenkii dabka agtiisa ka qosli jiray. subax maalmaha ka mid ah, gabar yar la yidhaahdo Aamina ayaa timid doonta Sami. waxay lahayd indho waaweyn oo xiiso leh. waxayna tiri, adeer Sami, maxaa mar walba u murugsan tahay? Sami wuu neebsaday oo yidhi, waxaan sitaa culays weyn gabaryey, culayskaas oo ka yimid shalay. Aamina madaxeeda ayay yara leexisay, waxayna si tartiib ah u tiri, laakiin adeer, haddii aad sido shalay, sidee ayaad maanta u arki kartaa? erayadeeda si qoto dheer ayay u taabteen Sami. Sami wuxuu fadhiistay geeska webiga isagoo daawanaya biyaha si joogto ah ugu qulqulaya badda. webigu waxba ma xafido, marna dib uma eego, si joogto ah ayuu u socdaa. Sami wuxuu garwaaqsaday wax weyn. wixii hore wuxuu ka mid ahaa webiga, isagana wuxuu isku dayayay inuu dhagaxaantiisa ku qaato doontiisa. laakiin dhagaxaantu keligiis culays bay ku ahayd. maalintaas wixii ka dambeeyey Sami go'aan ayuu gaaray. wuxuu xasuusan doonaa shalay, laakiin ma qaadi doono. wuxuu sharfi doonaa xasuusta walaalkiis, isagoo si buuxda u noolaanaya, ma aha inuu ku xufan doono dembiga. subaxdii xigtay Sami si qoto dheer ayuu u neefsaday. doontiisii ayuu fuulay, wuxuuna u dhoola caddeeyey qoraxda soo baxaysa. markii ugu horeysay sannado badan wuxuu dareemay iftiin, farxad iyo fudeed. markii doontu si tartiib ah ugu lulaysay webiga, Sami wuxuu ogaa wixii hore waa gadaal, mustaqbalku waa hore, maantana waa hadiyad sugaysa in la furo. haddii aan eegno nolosheenna, way fududahay inaan qaadano culayskii shalay, khaladaadka, khasaaraha iyo qoomamada. laakiin runta ayaa ah, shalay waa cashar, ma aha hukun nololeed. webigu wuxuu ina barayaa inaan sii dayno, hore u soconno, aan qaabilno maalin kasta oo cusub, anagoo aan wadan culayskii hore. sii daa waxa ku culays saaraya, xushmay wixii hore, laakiin ha qaadin. sababtoo ah noloshu waa qaali, maantana aad bay u qurux badan tahay in lagu xiro shalay.